waa mar kale iyo tiknoolajiyadda. Sida xaqiiqda ah, tiknoolajiyaddu way isbedeshaa sanadba sanadka ka dambeeya, waxaana shaki ku jirin in inteena badan ay isticmaalaan adeegga WhatsApp-ka. Shirkadda WhatsApp-ka ayaa shaacisay in dhammaan xogaha ku kaydsan WhatsApp-ka ay la wadaagi doonto shirkadda Facebook, kaas oo asalkiisu iska leh shirkadda Facebook, marka la gaaro 8 February. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saaro si aad u noqoto daawadaheena ugu horeeya muuqaalada xiisaha leh ee aan soo gelino. Marka ay shaacisay shirkadda WhatsApp-ka, waxaa durbadiiba ka guuray dowlado badan oo caalamka ka mid ah, waxayna u guureen adeegga la yiraahdo BIB oo ay iska leedahay shirkadda Turkiga. Waxaan soo dhigi doonaa application-ka linkiga hoose ee description-ka ama qaybta commentiga. Fadlan muuqaalada sii share gareeya, la wadaaga asxaabtiina.